iyadoo uu waqtiyadii u dambeeyay uu sii xoogeysanayay khilaafka u dhaxeeya madaxda ugu sarreysa dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya khilaafkaasi oo ka dhashay sidii looga bixi lahaa xilliga ku-meel gaarka ah xilliga ay dhacayaan doorashada madaxweynaha iyo midda afhayeenka baarlamaanka iyo sidoo kale muddo kororsigii uu sameeyay golaha baarlamaanka ku-meel gaarka ah arrimahaas oo keenay qalqal siyaasadeed oo ku yimaada dowladda ku-meel gaarka ah ee tabarta yar ayaa haddana waxay arrimuhu sii cakirmeen markii ay soo baxeen go'aamadii shirkii Kampala oo mid ka mid ah qodobada lagu heshiiyay uu yahay inuu muddo bil gudaheeda isku casilo ra'iisul wasaaraha xukuumadda ku-meel gaarka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo qodobkaas oo lama filaan ku noqday dad badan oo u riyaaqsana waxqabadka xukuumadda uu horboodayo ra'iisul wasaare Farmaajo arrintaasi oo horseeday dibadbaxyo ay dhigayeen dad diidan in ra'iisul wasaaraha uu iscasilo dibadbaxyadaasi oo gilgalay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho isla markaasina sababay dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed haddaba iyadoo ay wili socdaan banaanbaxyadii lagu taageerayay ra'iisul wasaare Farmaajo dadweynuhuna ay ka dhirsugayaan waxa uu go'aanka ugu dambeeya ee ra'iisul wasaaraha noqon doono ayaa waxaa maanta shir jaraa'id oo uu ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa Muqdisho warfidiyaanada ugu qabtay ku cadeeyay mowqifkiisa ku aadan qodobkii heshiiska ee dhigayay inuu shaqada ka tago ra'iisul wasaare Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ugu horreyn u mahadceliyay dadka Soomaaliyeed oo uu sheegay in ay muujiyeen midnimo isagoo dhanka kalena sheegay in isaga iyo xubnaha golaha wasiirada xukuumadda ku-meel gaarka ah ay u dhaarteen in ay bulshada Soomaaliyeed wax u qabtaan arrintaas oo uu xusay ra'iisul wasaaruhu in ay wax badan ugu hirgaleen aad iyo aad u mahadcelinayaa taageeradooda ay muujiyeen oo ah mid wadannimo ah mid ka fog danaysi waxayna ahayd mid adduunka oo dhan kicisay oo cid walba ay u arkeen Soomaaliya inay tahay mid wada maslaxadooda iyo danahoodana ay ka midisnaan karaan taasi ilaaha mahad leh inay dareenkooda muujiyeen waxaanse leeyahay inay shucuurtooda muujiyaan xaq u leeyihiin iyo banaanbaxyadooda laakiin waa inuu noqdo mid ah nabadgelyo biis ah waxaan ballan ku qaadnay inaan dalka iyo dadka u shaqeyno oo danaha shaksiga ah meesha laga baxsho ilaahay waa nagu guuleeyey 6 bilood oo soo dhaafay taasaa waxay keentay in aan qabanno wax la taaban karo taasaa waxay keentay ummadda Soomaaliyeed inay yiraahdaan xukuumaddan waa shaqeynaysaa taasaa waxay keentay in nala siiyo kalsooni meel kasta Soomaali ay joogaan ra'iisul wasaare Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ugu dambeyntii hoosta ka xariiqay in uu tixgelin doono rabitaanka shacabka Soomaaliyeed waa sida uu hadalka u dhigay isla markaana aanu marnaba iska casili doonin xilka ra'iisul wasaarenimo ee uu haatan hayo ilaa heshiiska la hor keenayo baarlamaanka ku-meel gaarka ah ee Soomaaliya markii aan soo noqonay marxaladda magaalada Muqdisho iyo dareenka dadweynaha kulliya waa bedelnaa dadka shucuurtooda iyo rabitaankoodana wuxuu ahaa mid aan la xisaabi karin ama la qiyaasi karin marka waxaa ii soo baxday anoo dhegaysanaya shacabka ummadda Soomaaliyeed dareenkooda anoo dhegaysanaya maxaan ku yidhaahdaa golaha wasiiradayda oo unanimously si guud ugu codeeyay in heshiiskii Kampala aan u gudbino baarlamaanka sideedaba mar haddii heshiis la soo galo si kasta ha loo soo galo waxaa lagu khasban yahay sida axdiga ku-meel gaarka uu noo sheegayo ama dastuurkii 60kii in la marsiiyo golaha baarlamaanka oo iyagu ay ka doodaan ay ratification ku sameeyeen taas waxay ahayd mas'uuliyad golaha wasiiradu ay qaateen in heshiiskaasi loo gudbiyo golaha baarlamaanka waxaa ku jirtay heshiiskaas 10 qaybood ah ama 10 xubnood ah ama 10 points ah iscasilaadda golaha iscasilaadda ra'iisul wasaaraha xaqiiqdii markaan arkay dareenka shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan
iyo midnimada ay muujiyeen iyo qaranimada ay tuseen caalamka waxaa ii muuqatay inaan dhegeysto shacabka inaan yidhaahdo waa inaan raaco procedurkii loo baahnaa oo ahaa in xukuumadda anagu madaxda ka ahay ay ka qaadi karto kalsoonida ama ay kalsooni siin karto baarlamaanka marka anoo eegay intaasoo dhan waxaan go-aan ku qaatay in aan u dayno kalsoonida ka qaadista ama siinta baarlamaanka laakiin anugu aan eego rabitaanka shacabka soomaaliyeed maxaa yeelay iyagaan u hayaa meesha iyagaa iska leh maxaan ku dhahdaa hadalka ugu dambeeya go-aanka ugu dambeeya shacabka soomaaliyeed yaa iska leh iyo golaha baarlamaanka rabitaanka shaksigu waa meeshiisa booskan ama boosas walbaba oo loo hayo ummadda soomaaliyeed waa temporary qofka isku dejin kara ma laha oo jeclaysan kara ma jiro waxaan u haynaa ummadda soomaaliya shacabka soomaaliya waxaan ku haynaa rabitaanka shacabka soomaaliya iyo golaha baarlamaanka hadday yidhaahdaan waa kaala noqonay kalsoonida waxaa khasab igu ah si sharaf leh inaan isu casiyo laakiin inta ka horeysa inaan eego rabitaanka ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan iyo shucuurtay ka muujiyeen iyo barnaamijyaday ka muujiyeen iyo baarlamaanka saas darteed waa sii shaqaynayaa inta baarlamaanku ka fadhiisanaya iyo go-aankaas ay qaadanaya hadalkan ka soo yeeray wasiirka koowaad ayaa ka dhigan midii laba af leh maadaama ay hubaal tahay in dad badani ay neefta ka soo boodi doonto oo ay farxi doonaan halka dad kalena ay ku noqon doonto fallaar laabta kaga dhacday ibraahim maxamed xuseen ibraahim jk universal TV caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.